لذلك بقى إلهي في سورة التحريم لحد مرة إلهي كقورما يا سورة داس لبوا لوانين إياه لبنا تصالح في عما لقد إياه لبنا تصالح بقى إلهي كتل مامية لبوا لوانين إياه يا عائشة يا حفصة والنبي وغبي عليه الصلاة والسلام عمر يا أبي بكر ندلين ayaa la leeyahay hadaa xumaha sameeysan guuleysan meeysan walaw xaasaskii nabiga tihiin walaw ina Abi Bakar iyo ina Umar tihiin ina Umarna wax ku heli maysid ina Abi Bakarna wax ku heli maysid hadaa jidka diido sax ah dabeetana Ilaahay suuradan buu soo dejiyay oo lixda dumar ku hadlayo labana waxa la sheegay inay xaq ku sugnaan waayeen oo ka weecdeen oo ah لبا نبي قبيل ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين إلهي سبحانه وتعالى وحليه وحط صالة ليدين كندقيا لبدي هوانها اي قبين لبدا النبي نبي نوح يا نبي لوط دبتنا جدكي نبي لوط يا جدكي نبي نوح باي كوعدين انت هوقتي يا اهل النار كابay ku biireen bay ilaahay leey walaw nabiy qabeen mar haday xaq diidaan oo diinta si dhaba uga weecdaan waxba nabinimadu caawin mayso ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء عاون ميسو بنك كره إلهي سبحانه وتعالى لبد مرو أو خير قبو التلمامية وأن يجي النبي دالين نبي نقب لكن يجو نقضي دات خير قبا ويجو مدينة النبي دشي مدينة النبي كريسي laakiin wanaagooda laguma tilmaamin inay nabi dhashay oo quraama inay nabi korisay waxa lagu tilmaamay inay mowqif istaageen inay diintooda raaceen iyadoo imtixaanaadka ay soo mareen وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إلهي وحكرته صالح لكسين يا بار رب الله سبحانه وتعالى امرأة فرعون فرعون هوين يديسي فرعون ومن أعتى أعداء الله فرعون ومن أكبر الطغاة إنه طغى أي إله كسفي فرعون وبغركي أمري قبائل دانين رجل فرعون ونكبري وإنتو أركوا صعدا في ميل والبا ضدك أشيرتين إلهي هي إنه ربي تخذ بدايي له أنا ربكم الأعلى ربي إنك الريانة ضدك هو صار نافي حاشية حاشية وزير ذي أنتم كل دويو مضحلة أيكم يري ما علمت لكم من إله غيري وملائكو كتل ماما يا عمد الإسكاليين يا شعبويني ملائي بوحلي ما علمت لكم من إله غيري إله أنا ندي هاي ندين قرن مايو نينك هل كاتاغن أي هوينيدين u badheedhay inay ka hortimaado ninka mowqifka isla taagan qabiildan waxay dhaleen gowracaya dadka rabbinimada u sheegtay ilaahnimada ay haweenaydii ku tala gashay inay soo hortaagto oo ay rabbi doorato markaas ilaahay bariyaysaa waxay leedahay rabbi ibni li 'indak baytan fil janna ilaahu adiga agtaada fircoon agtiisa maaha wuxuu fircoon nimco iyo haystay oo dhan uma muuqato فرعون لا ليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون ورنيدا نركيننا نقول يا هي ملك مصر مصر بغرتوية دي أردن وحق الصور النعمان هستمي يدا نركينين ميدا نركين بولاي هي وهذه الأنهار تجري من تحتي وحوبية هوستيد الدريرية حوين إذن لغو مقال دين إنay قصر كنو شيء
laguma qaldin boqor inuu qabo may qaldin in webiyaal hoosteeda dareerayaan laakiin waxaasoo dhan waxay ka dooratay ilaahay jaarnimadiisa waxay mufasiriintu yidhaahdaan intaanay guriga sheegin jaarkay sheegtay rabbi ibni lii cindaka baytan fi ljanna ilaahow agtaada guri iga sii bay leedahay jannada haweenaydaa ilaahay subxaana wa tacaala iyadoo nebi ahayn ayaa ilaahay kitaabkiisa qur-aana ku xusay oo ku tilmaamay mowqifkeedii iyo siay diinta ugu sugnaatay haweenay labaad baa ilaahay qur-aanka ku sugayaayo kuwan ka mida waa imra'a waa maryam qur-aanku sida badan ilaahay subxaana wa tacaala markuu dadka ka warramayo ambiyada mooyaane waxay yidhaahdaan magacyada badane kale ma sheego maalan nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam dhowr jeer buu qur-aanka magaciisa ku qoray wixii saxaabo nebiga la noolaayoo dhanna zayd oo qura ilaahay ka magac dhabay wixii qabaa'il carbeed ee meesha deganaa oo dhan quraysh qura ilaahay mar qura magac dhabay liilaafi qurayshin ilaafihim qurayshoo dhowr iyo 20 sannadood ay nebi moxamed ishayeen calayhi salaatu wasalaam haddana mar qura magacooda qur-aanku tilmaamay qur-aanku asmaada inta badan ma qiimeeya wuxuu tilmaamaa maxay afcaasha sidii kii waxaan sameeyey gabadha caynka yeeshay kii caynka yeeshay maryami waa gabadha keliya qur-aanku magaceeda tilmaamay tilmaam qura maahae dhowr iyo 20 jeer mararka qaarkood culimmada qaar ay yidhaahdaan 30 baar bay ka tallaabaysaa magaceeda ilaahay si cad u tilmaamay maryama ilaahay magaceeda waa ku celceliyey qur'aan la akhriya ilaahay magaceeda ka yeelay qur'aan ilaahay lagu caabudo inay noqoto maryama ilaahay wuxuu ku sifaynaya subxaana wa tacaala inay ahayd gabadh saalixada oo dhowrsoon waxaa ilaahay ku sifaynaya dhowrsanideedaasi iyo cibaadadeedaasi karaamaadkeeda ilaahay qur-aanka ku tilmaamay waa gabadha iyadoo masaajidka iska joogta xagga rabbi cunno looga keeni jiray ilaa nebigii hayee zakariya uu weydiiyo waxaan xagga kaaga yimaadaa ay tidhaahda in allaha yarzuqu man yashaau ilaahay baa cidduu doona arsaaqa ay ugu jawaabaysay hunaalika dacaa zakariya rabba baa ilaah yidhi halkaa markii uu zakariya arkay haweenaydan iyo waxa karaamo ka dhacday buu ilaahay subxaana wa tacaala baryey haweenaydani waa haweenayda ilaahay ilma siiyey iyadoo ninba arag waa nooc min alimtixaan dhan marka laga eegana waa nicma waa imtixaan gabadh cibaado ku caanbaxday oo masaajid joogta maruuna la arko iyadoo calooshu buuranta oo ur leh imtixaankaasaa ku dhaco dadoo dhammi ceebaynayaan markaasoo la leeyahay waxa kanaad wadataa waa maxay ilaahi subxaana wa tacaala laakiin iyana qur-aanku ku magac dhabay kuna tilmaamay allatii axsanat farjaha inay tahay tii dhowrsanaatay cafiifadda noqotay idan waxa aan tilmaamayn oo dhammi waa dad la imtixaamay dadna imtixaanka waa ku guulaysteen